waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug mudane Kamaal Daahir Guutaale markii ay soo caga dhigatay diyaaradii siday wafdigani uu hogaaminayo musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb sida dhalinyarada haweenka culumooyinka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin intaas kadib ayaa xaflad kooban oo loogu qabtay musharaxa iyo wafdiga la socda gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Dhuusamareeb iyo siyaasi Cali Yara Cali musharax Guutaale oo galabta aan ku soo dhaweynayna xafladda tan sharafta badan oo ay isku soo dhaweeyeen dadka ehelkiisa ah oo meesha ku soo dhaweynaya oo aad iyo aad ugu qalbi furan una soo dhaweynaya si sharaf leh oo galgacayl leh oo nidaamkeedu aanan wada bagi karin waxaan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow musharax soo dhawow madaxweyne soo dhawow aan ku leenahay waxaad timid waa gurigaagii waxaad u timid waa dadkaagii waxaad wax ka doonaysaa waa dalkaaga wax kale hadda dheeraada ma lihi waxaan ku soo dhaweynaynaa sil gacaltooye leh oo soo dhaweyn leh oo ehel leh ayaan kugu soo dhaweynaynaa insaan wax darkiisa iyo wax kalkiisa iyo taariikhdiisana annaga idin hayna ma ahan yacni nin axadiiska soo orday maaha waa nin bisil dawladnimada u bisil ahalka u bisil qaranka u bisil ku soo dhawaada horta Kamaal waxaan ku aqaanaa siyaasi bisil oo cabqari ah oo waaqici ah oo aqoonyahan ah oo dadnimo leh oo xisaabtankiisu aad u heer sareeya ayaan ku garanayaa ugu dambeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macallin Nuur Cilmi Cabdulle iyo musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug Kamaal Daahir Guutaale Kamaal Guutaale soo dhawow ku soo dhawow caasimadda Dhuusamareeb ku soo dhawow meesha aad rabto inaad ka tartanto insha Allah haddii Ilaahay kuu qadarana waad guulaysan doontaa haddaad guulaysatana waa ku garab istaagi doonaa mudane musharax xilku waa dhib badan yahay barbara laga soo tago Kismaayo waa ka horeysay Boosaaso waa ka horeysay laakiin siyaasad guracana lagu hormariyay waxaan rabaa inaan u doodo waxaan rabaa inaan hormariyo waxaan rabaa adduunka inaan u maro sidii loo dhisi lahaa dekadahaas iyo dekada Hobyana looga dhigi lahaa dekada koowaad walaalayaal sidoo kale waxaan rabaa inaan mashaariicda waaweyn maanta reer Galmudug waa state-ka kaliya oo lix airport oo shaqeeya airportka Gurceel iyo kan Cabudwaaq iyo kan Dhuusamareeb iyo kan Cadaado iyo kan Gaalkacyo iyo kan Hobyo mid kasta waxaa laga helaa intaas oo flight weekii ayaa laga helaa weekii 5 flight 3 flight 2 flight ayaa laga helaa laakiin waxaas dadka samaystay dawlad uma sameyn waxaan rabnaa mashaariicdaas airportada lagu horumarinayo inaan dhisno anuguna hormuud ayaan ka noqonayaa Bashir Maxamed Salaad Hon Cable TV Dhuusamareeb adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida